adiga waa mahadsan tahay idinkana waa idinkaga mahad celinaya xaqiiqatan maanta waad ogtihiin waa maalin ciida waa maalin weyn ciid mubaarak mar kale ilaahay waxaan ka rajaynaynaa ciidan ciideeda kale inuu nagu gaarsiiyo caafimaad iyo cibaado san farxad ayay runtii noo tahay inaan halkan idinkula ciidno maanta oo aan idinla qaybsanno farxadda ciidda barakaysan xaqiiqatan waxa aad samayseen oo ah inaad naftiinna u hibaysaan dalkiinna waxa weeye waa waajibaadka qofka waddaniga ah laga rabo ama muwaadinka laga rabo saas waa ogtiin soo maaha waajibaadkaasi waxaad ku raadinaysaan sharaf iyo karaamo waxaa ugu horreeya qofka marka uu isqoro ciidanka wuxuu saxiixay naftiisa uu hibeeyey inuu naftiisa siiyo dalkiisa saas waa ogtiin soo maaha qofka hadduu ciidan galo oo uu naftiisa u hibeeyo wuxuu raadinayaa sharaf hadduu nool yahayna sharaf uu ku noolaado hadduu dhintana sharaf uu ku dhinto dalkeenna dagaal ayuu ku jiraa waxaad ogtihiin muddo dheer iyuu dalka dagaal ku jiray dagaalkana wuxuu uga bixi karaa dhallinyaro idinkoo kale ah oo diyaar ah inay dhiig u shubaan inay u dhibtoodaan inay u dhintaan ma aha hawsha aad ku jirtaan shaqo ma aha waxaad raadinaysaan shaqo ma aha waxaad raadinaysaan waxa weeye dalkiinna heybaddiisii iyo sharafkiisii inuu soo noqdo dal walba waxaa lagu qiimeeyaa inta ciidan uu leeyahay inta xoog uu leeyahay waxaa lagu qiimeeyaa inta divisions ciidanka divisions uu kala leeyahay inta qaybood uu leeyahay yaa lagu qiimeeyaa dal walba waxaa lagu sharfaa oo lagu soo dhoweeyaa lagu karaameeyaa inta wiilal idinkoo kale ah oo diyaar u ah inay u dhintaan saas waa ogtiin soo maaha dalku hadduusan ciidan lahayn madaxweynihiisu sharaf ma laha dalkana sharaf ma laha laakiin dalka hadduu leeyahay xoog idinkoo kale ah oo diyaara ah inay naftooda u huraan oo ay u dhintaan dalkaasi waa karaamaysan yahay magac buu adduunku leeyahay qiimo gaaruu leeyahay idinkaa la rabaa marka inaad soo celisaan sharafkaas iyo qiimahaas soomaaliya ee horu lahayd inaad idinka soo celisaan waxaad lahaan doontaan dhallinyara kulligiin wada tihiin rag badan oo halkan idinka mid ah inay hoggaanka ciidanka qabtaan taliyaasha qaybaha ee kala duwan yaa halkan fadhiya oo idinku jira ilaahay ha idinka dhigo kuwii u shaqeeya dalkooda ilaahay ha idinka dhigo kuwii dalkooda naftooda ugu hibeeya ilaahay ha idinka dhigo hoggaankii dalkan u lahaan laha ilahay ha idinka dhigo waxay ku xidhan tahay marka himadda iyo niyadda leedahay ay ku xidhan tahay marka waxaa naga wada maqan oo wada leenahay waa dalkeenna wey haddaynan dalkan u istaagin difaaciisa haddaynan dalkan u istaagin hadda waxa weeye ma noqonaysaan dadkaan sheegaayo 1 2 3 macnaheedu waxa weeye waxaa ugu muhiimsan oo ugu wanaagsan qofka isagoo ilaahay hortiisa u difaacay dalkiisa oo dadkiisa difaacanaya inuu dhinto ilaa noolaan mayna weligeed marka dhimashadu waa wax ilaahay xaggiisa ka qoran waxaan annaga ognahay maaha wakhtigeeda leedahay qof walba waxaa weeye laakiin lagu kala duwan yahay qof walba waxa weeye siduu u noolaanayo inay noqoto si sharaf leh inuu goosto go'aankaas leeyahay hadduu dhimanaayana si sharaf leh inuu u dhinto go'aankeedana waa leeyahay iyada naftigeeda halkan waxaa iga muuqda dhallinyaro firfircoon oo xoog leh laakiin niyaddooda wanaagsan oo halkan u yimid ma aha shaqo inay naftooda u hibeeyaan dalkooda difaacaan dalkooda iyo dadkoodaba soo saas maaha saas ballan ilaahay ma noo tahay dalkan annagaa iska leh inaan cadow ka ceshanno hadduu yahay cadow dibadeed iyo cadow gudaha labadaba diyaar buu tihiin dalkan yaa iska leh waa u dhimanaysaan soo maaha dhiiggiina waa u qubaysaan waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullah